السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وكيسان يوتيوب كايد دام لسنا وكاشو سون كسر يوتيوب channel كنا ديك وسنتي سبسكرايب لايك الشانو ده عادي هذا ما سنتي سودوا مركله ما أنتوا حنيدين ولا قصة عادي لو dadka wacajabisay oo ka dhacday wadankan Ghana qisada asayto oo ku dhacday nin oday oo aan ku tilmaami kara sanadkiisa amal aan ku tilmaami kara 70 ama 80 ku dhawaad odayga asayto qisada ku dhacday waxay ahayd qisooyinka yani inaba caadi ahayn waa qisooyinkii laga yaabay yani oo qof islaam oo sanadkaneed yani qisooyinkii yani wax si lama filaan amal qof ku noqotay oo hadana mar kale farxad isu bedeshay taasoo ah oo gudgalne ninkaanay odayga wadankaas Ghana ayuu joogay tuulo kamid ah oo wadankaas dhaxdiis tuulo kamid ah ayuu ku noolay marka maalmaha kamid ah asagoo gurigiisa iska joogo xaafadiisa iyo ciyaalka iska joogo sirtiisa iska jeefo waqtin dadkan ay tuulooyinka wax weyn ma qabtaan taasoo hadiiba qofku wax ku mashquul asaynin magaalada uu joogin oo haasaabo iyo wax la aadan la marka cidiisi ilmihiisa wax ku dhaamala beerisu iska falnay marka maanta waa maanta nasanay soo gurigiisa iska joogo tasbiixdiisa iska wata ayaa kuwa warbaahin oo wax duubayaan meesha agaarkiisa oo Turkiga iska leeyin kuya markaanay droonka wax ku duubayaan ayaa guriga soo dhacay ama xaafada balod marka ninkan odayga ma isdhibin uu tagay droonkii ayuu soo qaaday markaas uu saan u fiiri wixii markaan diyaaradna ma waan wax yar haduu saan u fiirin wax hataa yani ويا مركب كل سؤال يسوي ده محين قاني كرانو إسرائيل مركب أصلي مركب أنا إنت ما دام وادينا دتكي ملا كك دواي أجار كك دواي أيوه ويدي مركب دتكي واحد سكون عملا واو أنت سوقف مجال كي ما مباو واحد جواب كيني كده مركب واحد سكون عملا مش تولو واي marka odaygu waa la yaab cajib arinta markaanayta cidna lama wadaagin oo tuuladaas ka baxsan marka uu haay dariskiiska dheer aday mu weereysan uu haay soo haay ayaa ninkii warbaahinta ama journalist noqdo ama qof kale noqdo qofkeedii baash markiida droonka isticmaalay ayaa marka meel walba ka raadi uu way marka hadii uu droonki la way dad ma ku qasbaysaa gacanta lugta inuu ku raadiyo maadaama wax weyn oo meel hablaay ku dhacan leekar ay ahayn korontina ka tagtiin loo malay sababta droon markuu soo dhaco ama inay koronto ka tagtay ama inay cilad kale technical ay jirto marka arintii markaanay agaarkaasay tuuleedu wixii dad oo meeshaasay ka ag dhawaay ayuu wareystay marka waa loo soo tilmaamay qofkaasay tahay marka asagii oo raadinaya baash iyo duqiyo baash gacantan u hay ayaa kun marka duqi marka asag wili waxa ka dhacsan baashan diyaarad waawatee tiiki weyneed marka si kaftan leh ayuu markaanayta ayuu ku yiri midkii oo imaaday am cameramanki ayuu ku dhahay warniyow tan taadamiyay ayuu marka waxaan dhahay niyow tan tuka weyn oo xajki gees aan u baahnaay marka heli kara marka waa arin cajiib oday iska daa iyo qolku ka hadlay nin iimaan la ayuu u leekaaday journalist niyow waxaan marka niyow bal aniga warkaad meel ku gaarsiinay insha Allah bal faataxa soo mar adigan ina arintaad ilay ku aqbal waayo nin waxa tahay oo fikrad dheer iyo maxalli jiray riyaad weyn la tahay ina rida ilay ku rumay faataxa soo mar marka ninkan waa orday waxa uu tagay safaaradda Turkiga maadaama waa Turkish ahay wuxuu tagay safaaradda Turkiga waxa dhaynay arintaas ay u dhacday arintaana jirta
marka bal ninkan aan garab qabano bal fadlan riyadiisa inuu bal xajka gaaro rabaa bal xajka kale aan ku san insha Allah marka safaaradii arintii marka loo soo bandhigay oo odigan yani وياكتي لأن يعني ماشي بديها أساس رفضت تكون أم كانت اللي يعني حج كان أوبا أنا هي مال يبقى أوبا نك إيمان كيسة اللي عبت سفارات مركا سفارات دي مركا نيت وحيلات نيو والله أضيق حلا يبل نيو سؤال أبقالة ووقتي حج كان جاري وقتي حج اللي جاري إيمان كوقتين وقتي حج كان لو جرا وحجاج حج كأذين marka ninka odayga ahay hadda wuxuu kamid yahay dadka xajka aaday oo maadaama ay ka faala qaadeen sidaas ayuu ku baxay xajka ayuu aaday iminka waa sida aad sawirkiisa arkaysiin asoo xajka maka taagan marka sidaas ay dad maxay noqsinaysaa yani wuxuu riidaada haddii uu billahi ka tahay oo riifi aan leedahay inuu maalmaha kamid ah uu ilaahay ku rumayn karo ima haddii dhalinyar tahay iyo haddii oday tahay haddii wax khayr ay yihiin ilaahay uu ku taageeraa wax walbo meel walbo ku maray hadda ninkan waa Ghana asaga waa wadan Ghana oo president wadan Ghana asiyahay laakiin Turkish embassy ama safaarad Turkiga ayaa ka qayb qaadatay inay xajka geyso oo wax ku baxay ku baxdo marka ilaahay ma hadii wax kula doono meel asrabo ku maraa oo ku marinaya inay riidada islee asile korno marka daawade adigana riidada ilaahay ku rumay fikirde maxal historian maanta noo eegyahay bal share garay asxaabtada la wadaag خير عليكم رجينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.